بسم الله والحمد لله. walaalayaal waxaan iska xasuusinaynaa biidnillaahi tacaala inta ilaahay inaga waafajiyo qaabka carruurta looga faa'iidaysto khaasatan carruurta qurbaha ku nool ee waddamada gaalada u badan tahay carruurta joogto habka wax loo baray ee looga faa'iidaysto. Baritaanku wuxuu u kala baxaa maadi iyo diin. cunugu maadiga barashadiisa kaalmo weyn kaagama baahno, dabcan waa kaaga baahan yahay xoogaa adiga uun celcelisa, laakiin inta badan maadiga asiga ayaa jecel inuu xoogga saaro. activiteedka kala gedisan ee isboorti uu ka mid yahayna asiga ayaaba kaaga horreeya. cunugu waaba jecel yahay, wuxuu ku leeyahay balooniga ii wad, basketballka, maxay bootinta, yacni isboortiyada kala gedisan iyo noloshaas kale oo caadiga carruurtu ayagaa kaa jecel. waxbarasho weyn kale kaagama baahno, xoogaa caawitaan oo kaaga baahan yahay meelaha geygeyso afiftiga xoogaa adiga aad ka dhiibto, laakiin sida badan caawitaan badan uma baahno. laakiin waa tan halka sartu ka qurunsan tahay, halka ilmaha inta badan caawitaanka ay u baahdaan ayaguna aysan rabin. cunugu markuu waxa asiga uu rabo ee aad caawinayso iyo markuusan rabin ee aad caawinayso waa kala gedisan tahay. marka cunugu waxa uu rabo aad ku caawinayso way fududdahay, laakiin waxa uusan rabin horta inaad rabsiiso waxay kugu qaadanayaan waqti. markii aad waqtigaas ka gudubto haddana inaad caawiso haddana waqti kale ay kugu qaadaneen. مثلا cunuga mugaad tiraa xamaad fadhiisay jus quraana ka soo tuur, waxaa laga yaabaa inuu 15 mug ka badan kuu yimaado. maraa soo dacwo kuu imaaha, mar wuxuu kuu imaaha dee alla kuu roon asoo ku dhahayo shalan akhriya maanta ma akhrihaa, mug kalaasa wuxuu kuu imaa ku dhaha waa bartay. yacni wuxuu isku dayaa saacadda aad kula ballantay amba 2 saac aad kula ballantay inay uga dhammaato beer daro. mugga inta badan diinta laba hawl ayay nooga baahan tahay carruurta dhinacooda markii loo dhamoodo. kow waa horta inaad jeclaysiiso ee aad ka dhaadhiciso waxaan aad barayso horta inay yihiin wax lagu nacfi karo. midda labaad waa inaad mugaad barta aad ka dhaadhacsiiso inuu rabo au dareemo, haddana aad waqti siiso. laga yaabo inaad hal aayad ay kugu qaadato bil, laga yaabo inay kugu qaadato hal aayad 2 bilood, allahu aclam. laakiin waxba ha camashoon, waayo allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nasaluka risqan naxnu narzuquka walcaaqibatu litaqwa. nabi maxameda waxaa lagu leeyahay aayaddu maxalushaadka nabi maxamed ma ahan, waa asiga ayaa naloo soo marsiiyey lisaankiisa sala allahu calayhi wasalama, balse aayaddu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim aayaddu waa ka weyn tahay. waayo aayaddu hadday intaas khusaysay beriga aayaddu ma joogi lahayn, ayagii raaci lahayd. waxaan ognahay barnaamij markii dad loo sameeyo, masalan haddii la yidhaha mashruuca indhoolayaasha, haddii la yidhaha 20 qofood oo indhaha ka dhacsan mashruuc loo sameeyo, 20kaas qof hadday ifka ka tagtee 20 kuba wada dhintaan, mashruucu siima jiro. waayo mashruucan cid wax lagu siiyo ee loogu shaqeymaba joogtaba. 20kii loogu talagalay way tageen, mashruuca laga yaaba inuu ka dambeeyo bil amba 2 bil. intii xoogaa dadkaas mashruucaas ku baasaysa jiray leeyahay shaqo raadsada, laga yaaba in lagu meel gaaro, laakiin mashruucu ma sii jiri doono. mugga aayaddu hadday nabi maxamed iyo asxaabtiisii kaliya ku koobneed, mug horey ka tegi lahayd ifka 1445 sano ka hor, kabacdi aayaddu siima jiri lahayn. waxay ku tusinaya taas inay aayaddu naga wada dhexayso oo ilaa qiyaamu saaca aayaddu ay noo wada dhexayso. mugga aan soo noqday barnaamijkaygii carruurta sida looga faa'iidaysto, horta kow jeclaysii cunuga. waxa aad barayso horta inay yihiin horta wax ou asugu jeclaado. midda labaad muggaad jeclaysiisa haddana u dulqaado. haddana masalan markuu ku yidhaa oo kale waxaan aadaa maanta maaj iyo waxaa isku soo aada dugsiga, inta badan maajaja banooniyada iyo dugsiyada waa isku soo aadaan. waayo annaga inta badan dugsiyada waxaan aadnaa sabti iyo axad, maajaj kale inta kale waxaa la aadaa meelaha kale, meelaha ugu badan waxaa la aadaa sabti iyo axad. mugga waa isku soo aadeen, mugda waa isku dhaceen. haddii mugga isku dhacaan wuxuu ku leeyahay cunuga haddaad la tashatee tiraa saan yeelaynaa maandhow ama maandhay, wuxuu ku leeyahay dugsiga la iska dhaafo maajka aan aado, way cadda. haddaad beriga ogolaato ee aad foogta ogolaato ee aad ta ku xigta ogolaato, macnaheedu waxay tahay marka dugsigii ha la iska dhaafee maajka jawi ha la aado. waay maajka jawi in la aadanahee sax ma ahan, maadi meel weyn ku geymaayo. laga yaabaa qofku muguu banooniga barto inuu sanadaad ugu horreeya xoogaa ka buuxsada jaabka, laakiin muguu 29 30 35 muguu ka kor maro waxaa leeyahay qofkaa waa duquubay eberwa. weli ma aragteen
qof macallin ah ee quraan 104 yaqaan ee leeyahay waa baayaha si wax loo aruurshay ma soo fadhiyay ma jirto waa dhargiga koriyo hoos laakiin qofka mugoo banooniga barto oo heerarka ugu sareeya tago 20 oo ku bilaabaan ka soo qaadno heerka ugu fiican 20 9 aan ka soo qaadno 40 39 adoo gaaro nasiib leeyahay 35 aan dhahnaba waa ka fadhiist 10 sano amba 15 sano ayuu ku jira banooniga oo waliba 15 sano banooni wada dheeli ma hayne waxa laga yaabaa mugoo koox la'aan ahay mug la gadaayay mugay tabaraad ku dhaxsanaayeen mug hadii alla idinkeeda leeyahay inta qalad sameeyo la ganaaxayay la leeyahay baasi soo celi inta uu ku raaxaysay banooniga hadii u badato waxay noqon kartaa 5 sanaba oo intaan uu fadhiyo kursiga kaydka banooni kuma raaxaysay oo hay cunug inta uu fadhiyo hadii alla idinkeeda leeyahay dhaawac ku jiro Dubai iyo Dimashq lagu soo daaweynayana banooni kuma raaxaysay oo hay inta uu hurdayna ka gooyba inta uu banooni ku raaxaysanayo waxa way 9 daqiiqo ku jira balaanka waliba hadii la bedelo kuma jirto muga inta saxda ah ee banooniga haysta anahnaba 5 sano dhahna 5 sano haday ka dhamaato oo cunugu 35 ka xagga maro waxa la leeyahay koox rabta male koox walba waxay leedahay jaynaha ugu dambeeyay hadda oo kooxaha weyn qaada jiray Sacuudigana kulay kama miirno ayaguna meel leer tagi maayaan muga ultimo waxaad maqlaa ciyaartoy hebel ee lacag lagu yeeshay musallafee la xiray ciyaartoy hebel oo ilmihi biili way hada waa ninka shalay qaadanaya malaayiin daqiiqadii waxaad maqlaa ciyaartoy hebel hooyisii abiis oo tuugsaay waa ku arkay dad mooto website-da waa ku arkay laakiin arki maysid hadii alla idinkeeda leeyahay macallin quraan yaqaano amba axaadiis rasuul korka ka xifdiyay ee baayahaysa maqli maysid habarteeday ka tahay hore uma dhicin haddana inay dhacayso ma caddo muga horta baahida ugu weyn waxa lagu baahi baxo horta waa quraanka iyo diinta ee maadi ma ahan cunugu si kasta oo maadi u barto risqiisu waa qoreen hadduu jaamacada ugu sareeyo ka qaato PhD waa shaqeeyaha amba uu shaqeeyay mushaarkiisa meel uu leeyahay waayo in Allah yarzuqu man yashaa bighayri xisaab inta shaqeysay inta aan shaqeynay ma badan inta aan shaqeynaa badan way muuqataa oo aniga weyn oo 30 sano jiraan shaqo bilaabay anoo waxaan cunimo bilaaban anoo jiro hal saac amba ka yarba hal saac laga soo bilaabo ilaa 30 sano yaa iquuday wadii wiligeey mushaari ma soo gelin aabeen wiligeey ma shaqeyn yaa iquudinay ma hayad kale xisiinaysa maya Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wax soo marsiinay qof bini aadan hooyo ha naqato aaba ha naqato adeer ha naqato eeda ha naqato qadimaysid uun adduunka inta shaqeysay inta aan shaqeynaa badan inta aan shaqeynaa badan marka cunugu koriyo hoos qadim maayo waa dharga ana ka hubo baray bislay baab quraan ley ninkii barta waa bagaaya ninkii aan barana baal afweyn aan maqli jir marka cunugu hadoo 104 jeebka ku rito waa dharga ana ka hubo taas laakiin aan jeclaysiino waqti aan siino waayo quraanku hal mar hololololololol inuu soo degay macquul maahan 23 sano degay quraanku hal mug waa la soo deji karay sababta loo soo yeeray waxay ahayd xigmad in qofka loo siiyo taako aayad uu xifdiyo ku amal falo hadana aayad kala timaado aayad uu xifdiyo ku amal falo hadana mid kala timaado aayad uu xifdiyo ku amal falo waxa kada hadana idinkeeda leeyahay mugo saas ayaa ay hawshu ku soconeen mugo ilma aan jeclaysiino mugo balooniga ku wado intaad baabuurka ku sii wado balooniga loo sii socdo hal aayad laba aad uga faa'iiday ilaa ma diidi karee mawta balooniga soo xalada aniga dasbad dugsiga waa u goynay banooniga hadda aan aadeen inta sii socon waxaan qabayna inta muusig ila gasho lahay aduguna aad yaala ku roon aad idaacad iyo wax iska dhageysan lahayd booskaas geliba hal aayad bar hadhow mugo banooniga oo ka soo dhamaado maajkaas ku xigo kule saacada u dhaxaysa meelaha qaarkood ama ka badan be saacadaas u dhaxaysa mugo qaday waxa uu soo hara hadana aayad kale u geli hadana labadii aayadood oo dugsiga ku qaado lahay baabuurka ku sii iyo banooniga hadana tamiinka dambigo hadana banooniga soo baxay dhaniyo asbuuc hore waxaan aadnay banooniga hadana biligay waxaan aadaynaa dugsiga ugu tilka betilka haday mugta waxa waaye in hal meel la wada aado sax ma ahan waa in la qaybsho shalay waxaan aadnaa xagga bilig waxaan aadaynaa meeshan hadii alla idinkeeda leeyahay saas in looga dhaadhacsiyo caruurta mugo walaalayaal aan isku boorino caruurta in aan jeclaysiino diinta quraan ee islaamka in aan quraanka jeclaysiino in aan waqtiyada aan haysan uga faa'iideyno way cunugu hadoo tumay 5 tumay 6 gaaro isma taqaanin inta uu rabo waxa waaye
أتكفى سكرت وحاول دليل كذا اللي هي سجال طبعا ولبا توكل بالله تضبط والنبي الحوري صلى الله عليه وسلم عرورته تضبطها لقوا بر الصلاة إلا طبعا هذه اللي قالنا حقا ومرشدها لقلش حقا هلا وحلو أتكيو إلا طبعا فريق جاريان موجا سببت اللي يلو تضبطها لقوا بالله سببت المان نبي محمد تضبويهين سببت العركة تضبط الله قد جاي سببت الأولك تضبط الله قد جاي سببت هذه اللي كده اللي يقولوا ياي وحاصل الحكمة ذا كجرت مقبل على يال أنسكب بورنا عروتي أنا مقفى إيدينا وقت